ننقل له هرتا أنا جبوتي waxa jira waa ka warhaynaa dadka badanana meeshan ku jirana waa ka warhayaan horta Ismaaciil wuxuu qabtay iyo wuxuu taray dadkaas markii loo fiiriyo waxay mudnaayeen isuma dhawa midda labaad waa leedahay idinka daciifiin oo ku raacsan taas anaga daciifiin oo Ismaaciil wax ka sugnayba laakiin de anagu waxaan ka hadlaynaa inuu problem nagu hayo inuu nagu haynin baan ka hadlaynaa ma ahayn inna ma oranin Ismaaciil Janis كيسو كفايدين إسماعيل دو جانس كويلو وأبا معاه مالك سايتها إنه كفايدين استوى يدل كيسا وحق بقول له يا عدكو أذاني سنمجرتو لكن وحوي أنا ضد ولا نهاي ضد ولا هذا نهاينا إن إستبين دابيين ما وأنا معناها دي حوجا استاكلينا داس ما بوينت كان أنا إنت أسوأ لكن أنا كده رأيي هدو نردو يا بروبلم مجرتو وعادي ورأيي على إسكاله وحنا كسر وين ولا شيء نظيفه ولا نظيفه كسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الله مقلع قارنا وضعي غير هذا. كده ولا تبع على مقلع كده. عادي عاد ما أردت إني السلام يا ما شاء الله تبارك الله برنامج في عن الله بهي وايه وعسوق مقابيه منك برموتك كهوانين هذا علنا يا نهارت عاد بنسدوينا يا إن ما أنت هرت الله دريمه إلا ده هديره لما نمرك أوكل قاعدة يعني جبوتي غير جبوتيانك أو مد جبوتيانك إيو إسماعيل عمر قال الدولة dadka Djibouti-aanka anigu dad badan baan ka aqaanaa saaxiibo badan baan ku leeyahay horta hal way ka midaysan yihiin waana ku raacsanahay waana mid hadda wiilka dhawaadinayay oo ah inay naga wadanisan yihiin oo iyagu intay shakhsi fiirin lahaayeen ay fiiriyaan waxa ka weyn oo ah qaranka maadaama hadaad shakhsi fiiriso wax badan oo qaranka muhiim u ah baad weynaysa wax badan oo ku dhisnaan lahaana way ka burburayaan horta taa way nooga fiican yihiin inay maaragtay waxa keenayana waa dad well educated way inta aan arkay waa dad aad aqoon u leh gabdho iyo wiilal iyagoo kala fikrad duwan iyagoo qaybtooda aad arkayso dadkooda xirxiran yahay haddana ku leeyihiin aniga dalka iyo way marka horta waan ku amaanayaa shacabka waa dad wadaniina waana mid anaga naga maqan walaalkeen hadda uu sheegay waa runtiis qaladka anaga iska leh because anagu waxaan jecel lahay haddaan Soomaali nahay anagu kaayaga dumiyaha ah kaayaga qarbudaha kaayaga gataha kaayaga dilaalka iyo dabadhilifka baanu taageeraa laakiin iyagoo arka koodi dilaalka iyo dabadhilifka bay waxay dhahayaan intaan dabadhilifkaan waxa uu rabo oo ah dalka dhan inuu tirtirmo intaan raaci lahaa anigu inaan gaajoodo ayaa iiga sharaf badan aad baan horta arrinta u soo dhaweynaya waana arrinta wadanimada iyo aqoonta ay keento qofku inta haduu iyo islaamnimadu saddexdaaba qofka haday u dhan yihiin midaas laga helaa horta taa shacabka reer Djibouti waan ku amaanayaa وانا مدة أن أدوج على الريبوتي أنك أبان على لا أنا أسي أودان له وحصهري مدحونا ولكن نضيف وحير على الرهلان كان يحقلوا فالله وحان كعسلنا هذاك هدلي dad badan baa soo codsanaya mayga inaa hoos u degtaan fadlan sida dhalinyarada kale ay raayigooda ayagana u degtaan waa maasantiis ku soconadiif wala raali noqo ma dhib maleenaadeen mid madaxweynuhu waxa uu arkay hadal hadda wiilka u dameeyay aan arkay inuu isaga xukuumadda uu aad u taabacsan yahay ilaa dadku muxaafid iyo mucaarad baa la kala yahay isagu muxaafidka yahay uu ka dhawaajiyay oo ah idinka ayaan waxba ahayn that's reality aad iyo aad baa arrinta ugu farxay because waa midda annaga waxa weeye annaga waxba ahayn isaguna wuxuu arkay ragga iyaga la adeegsan karo inuu marka adeegsado kii uu dirsan karo dirsado kii uu ku shaqaysan karo ku shaqaysto kii uu gumaysan karo gumaysto waa wax maaragtay raganimadiisa iyo dadnimadiisu keentay waana midda u saamaxday inuu waqti badan inaga dhibkeeni intuu ummadiisa dib u geystay annagana inuu dhibkiisi na soo gaaro waa midda keentay horta annaga taas aad baan u soo dhaweynayaa anigu hadda waxaan leeyahay dhibka ugu weyn annaga ragga iyaga na gaarsiiyey nama gaarsiinin ninka la dhaho madaxweynuhu hase ahaatee waa ninka ugu daran oo annaga walaalnimadii iyo maaragtay aan hadda yaa waay qofkan ascada raalina oo nin baa microphone waa ka saaray okay had mun ku socon karaa ku soconadiiba marka waxaan leeyahay walaal horta arrintii
hadalka dhan buu iga kala tuuray ninkii waxa weeye waxa weeye horta waa midda keentay waay cadowga ugu weyn oo annaga haddaanu Soomaali nahay meesha aanu ka filaynay iyo meesha uu noo istaagay horta waa laba kala duwan colaadna uguma qaadayno shacabka Jabuutiyaanka oo inta badan iyagu baan ognahay say dib u qabaan aqoon-yahanadoodii iyo dadkoodii hadal la dhaay waxa jira wiil walaalkay ka dhawaajiyo yiri ninkii dabadhil u shaqeeya akhirka isagu xira ninkii waxa aragtay u sameynay maanta xabsiga ugu jira darawaladiisi iyo raggiisa aqoon-yahankaana meeshu dhigay wayna ognahay marka Ismaaciil Cumar Geelle ma aha nin wadalkana uu shaqeynayo uu madaxda ka yahay ummadii walaalihiisa hayo kaleetana markay jabeen ka dhigtay waaye inay tahay meesha kaliya ku noolaan karo lulumadu biyaha ku noolaataa biyaha kaliya ku noolaan karo waxa weeye dabadhilifyada iyo dilaaliinta iyo kuwa iyaga dalka aan qiimo lahayn iyo shacabka Jabuuti iyo shacabka oo kala duwan oo different weyn u dhaxeeyo sababta shacabka Jabuutiyaan waa wadaniin anaguna waxaan nahay dilaaliin shacab dilaaliin aan nahay marka farqiga noo dhaxeeyo ka faa'iideystay laakiin wax asxaana iyo wax walaalnimo iyo wax sharafa anaguna uma hayno isaguna nooma hayo ogyahay annagana haddaan nahay dadka Soomaaliyeed waliba intii dambe ee hadda waaga horeeto uu hadee maqaarka dadan noo huwanayay oo aanu islahayn wallahi waa garab waa gaar laakiin intii dambe aanu intaan madaxa la soo kacnay xogaa indhuhu noo furmeen annaga nafkayo afki furanayo ilmo yaro hadal bartay aan noqonay aan una tusay wuxuuna tusay calooshiisa waana midda isaguna uu ogyahay anaguna aan ognahay waana midda keentay inuu dhufays kale oo qof kasta qofkii lulumadiisa biyihiisa ka gurinayo uu iska qabto sababta meesha kaliya uu ku noolaan karo dadkiisa ku gumaysan karo Soomaali ku gumayn karo waa Soomaaliya burbursanaata wuu ogyahay inay Soomaaliya xoreysay wuu ogyahay haday Soomaaliya istaagto inuu noolaanayn wuu ogyahay dadkan uu gumaysanayo meel ay degaan dibadda qof jooga wax ma xoreeyo wuu halgamaa laakiin dalku wuxuu u baahan yahay meel dhow aad ka soo abaabuli karto ama ka soo geli karto taasoo marka ka hortagaa waana cadowga ugu weyn ee Soomaaliya leedahay Jabuutina leedahay insha Allah ta'ala waxa weeye musuq ma sii socdo adduunka waa intaas oo qarni baa soo maray oo dad ah wada kibray maantana qofna kama noola maalintiisana la sugaynaa aadna waan ugu hambalyeynaya ummadda Jabuutiyaanka inay diidaan inay xabad qaataan xabad annaga meeshan dhigtaa ogna laakiin waan ku bogaadinayaa inay qalinka iyo codka iyo aqoonta ku diriraan oo iska qabtaan dilaaliinta inta waa ku bogaadinaya waan in salaamaya ما أنت ولا النظيف ما يواصل تلو 100% معناه ده ولا له رج جيبوتي أدمرك هرنا واشيء جيبوتي سوماليا كل إنه قط إننا ما ربنا إسماعيل هجوجو هدي معناه هذي جيبوتي نبربرتو إنه إننا مرة ثالث مركا لكن إن شاء الله سيدي معناه ده لو بدل لها سنة بدي كجرتو أو أقوم كجرتو أو دارش كجرتو معناه ده إن لو بدلوا ومهم واي وحسينا وراجع أحمد وقعدوا تاني أحمد كوزع ولا أحمد مكور مرة حوجا كان سيربا فضي هاي كوسع ولا دمله مكور مرة ولا محمد ما سنت هاي هذه سمتري ولا لا كلو ماشان كوسع جنبا مدن إسماعيل عمر جيل ما أنت اللي قال لي إسماعيل عمر جيل أنا dhibka Soomaali uu ku hayo waxa ka weyn dhibka uu dadka reer Jabuuti ku hayo marka laga hadlayo Ismaaciil Cumar Geelle iyo dhibaatada uu u geystay Jabuuti iyo Soomaaliya inaan si toos loo qeexin oo tafaftiran haddii aan isku dayo marka waxaan rabaa inaan isla fahanno in Ismaaciil anagoo burbursan laakiinse daba qabasho leh oo ummadeena daba qabasho leeyahay oo wadanku daba qabasho leeyahay inaan walaaltinimo bidnay heel bidnay cirsi walaaltinimo bidnay balse aanan tii ka faa'iidin oo runtii dhibaatadii inay burburisay dhibaatadii aanu ka cararaynay oo ahayd ma garanaysaa sidaan u kala qaybsanayn iyo qabaa'ilka aan isku dilay iyo wixii aan ka midoobay aan isku dayaynay inaan ka midowno ilaa xornimada markaan qaadanay inuu qoorta noo suray Soomaali fanaan iyo sheekh iyo siyaasi intay isugu timid Jabuuti u dhibaatadii qoorta noo suray tiina ay noqotay wax generation na saameeya wax
siyaasiyan noo galay annagina sii kala kaxeeyey inaan sii kala go'no oo sii kala fogaano oo calamo kala qaadano sababay dhibaato maantay na gaarsiisay in ma garanaysaa baarlamaanka federaalka speakerka ah markuu tegayo gobol Soomaaliya inuu maamul goboleed weydiisto ma soo geli karaa sidii inuu waddan shisheeyaa galay dhibaato maantay sababtay dhallinyaradeenii iyo generationkeenii intay saamaysay oo qabiilkii galay inay calankii inay reerka isku ammaanayaan ay isku soo sawirayaan publicly waa dhibaato Ismaaciil Qorta uu noo suray oo shalayto markaan ciirsiga bidnay wixii aan isku soo dilnay si aysan waxa baxa u noqonba uu Qorta noo sii suray arrintaas oo naga soo raacday Carta ma aan arrin siyaasiga Soomaalida loo sababayn karo oo kaliya waxay ahayd also dad baaba'san oo walaal dawlad ah markaas hiil biday hiilkiina na baabiisay Qorta noogu suray oo ma ahan mid siyaasiga Soomaalida ka imaanaysa taa ka sakow Ismaaciil wuxuu nagu